kalfadhigii afraad ee guddiga la talinta macadka shaqaalaha dawladda iyo dawladaha hoose dalka ayaa maanta waxa uu shir uga furmay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana kulanka shirkani lagu sheegay in lagu faaqidayo dhameystirka qaab dhismeedka macadka shaqaalaha dawladda iyo sidii loo mideyn lahaa tababarada ay bixiyaan macadka shaqaalaha dawladda iyo macadka dawladaha hoose degmooyinka dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqada macadka dawladaha hoose kulankan ee goobjoog ahaayeen badiba maayirada degmooyinka dalka iyo qaar kamid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka iyo mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa waxa ugu horeynba kulanka hadalka iba furay wariyo badan soo dhaweyn halkaasi ka soo jeediyay maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo sidoo kale barasaabka gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalintiin Baro boorkanu mid loo baahnaa buu ahaa waayo wax isku xidha goboladeen iyo degmooyinkeenu ma jiro oo boorkiina ahayn waxa kale oo dhan way fiiqsan yihiin insha Allah khayr badan baan idinka rajaynaynaa waxyaabo badanna waxaan jecelahay inaan hoos u eegtaan oo ku saabsan dawladaha hoose waxaan idinka rajaynaynaa in wax khayr badan oo horumariya dawladaha hoose iyo xiriirka dadka inay ka soo baxaan waxaan hadalkayga uu ku kooban yahay soo dhaweyn inaad ku soo dhaweyno magaaladii nabadda ee Boorama oo la soo dhawaada kullay waaruno meetingkani waa muhiim waxaan uu muhiim u yahay kala xuqaadashada iyo isku xidhnaanta hay'adda shaqaalaha iyo tan dawladda hoose oo ah in la develop gareeyo sidii la isku xidhi lahaa ee loo wada shaqeyn lahaa runtii dhankooga waxa iyaguna kulankaasi faahfaahin dheeriya ka bixiyay oo halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta ugu sarreysa hay'adda shaqaalaha dawladda iyaguna isu taagay muhiimadda uu leeyahay kulankani maanta magaalada Boorama uga furmay kalfadhigan oo ah kalfadhigii afraad ee maxadka shaqaalaha dawladda iyo maxadka dawladaha hoose waxaan maanta ku eegi doonaa waxqabadkii maxadka shaqaalaha dawladda iyo maxadka dawladaha hoose ee 6 bilood ee la soo dhaafay kalfadhigan oo muhiimadiisa leh oo lagu dardargelin doono hawl socodsiinta iyo ka shaqaysiinta maxadka dawladaha hoose waxaan rajayn doonaa inay ka soo bixi doonaan qodobo muhiim ah oo midhadhal ah kobcinta tayeynta iyo kor u qaadida shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha dawladaha hooseba runtii sida la sheegay kalfadhigan waa kii afraad ee xubnaha boorka ama gudida xigta siyaasadda lagu maamulo maxadka shaqaalaha dawladda iyo maxadka shaqaalaha dawladaha hoose oo isku sidkan sida la sheegay kii hore wuxuu nooga baaqaday coronavirus-ka oo duruufihiisa lahaa kan waxaynu ugu talagalno halkan uu nimay magaalada Boorama waqti gaar ah la soo helo maadaama dhammaan xubnaha la ka socdo oo mas'uuliyiin qiimo badan leh khaasatan maayiradu hawlahooda aad isaga badan yihiin agaasimayaasha guudna hawlahooda iska badan yihiin xafiiskaygani iska hawlo badan yihiin marka waqti badan aan la soo helayn si fursad la isugu helo oo si wanaagsan la isla jaan qaado la ogaado wixii la qabsoomay iyo waxa u baahan in la qabto kalfadhigan iyadoo warbixinaha aynu kala dhageysan doono iyo dadaalada la sameeyay iyo waxa u baahan 6 bilood ee soo socda inaynu qabanno iyo ku talagalka mustaqbalka waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Ariel TV Boorama.